السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا برامج كان شقيق بهين جرني. ما أنت هلكن حرتين إن شاء الله دور شقال سوق اللي ما تجمعها بيجي تقبيت وانتهاي بيجي اللباب. بريان قروا مضبوطين حقا أي في الأوسان انتهاي. قروي هيدا IRC IRC waxay uga baahan tahay supply chain officer bay uga baahan tahay garowe Soomaaliya waxa shaqaas xidmaysaa ay close noqonaysaa 2 March waqtan ka IRC waa hay'ad caan ah International Rescue Committee baa la yiraahdaa responsibility-ga qofkan looga baahan maxaa kamid ah wada the responsibilities the responsibility case of this position waxaa kamid ah developing procurement plans for active grants in collaboration with program teams in qofkan waxa weeyaan uu maxaa la yiraahdaa develop gareeyo qorshayaasha soo iibsiga iyo inuu markaa la shaqeeyo oo la hawlgalo waxyaabaha ay qabanayaan programka waxda gaar ahaan qaybta active grants-ka ah because active grants waxa weeyaan mashaariicda shaqeynayay development and implementing transport and distribution plans for program supply assets. Waxa kaloo kamid ah ensure procurement done in procurement plans and focus on emergency interventions. inta badan de alaab soo iibsigii kala wareejintii nidaamintii yani habsamo socodkii alaab iibsiga shaqaynteedii qorsheynteedii waxaasoo dhan baa inta badan qofkani uu logisticadii oo dhan ayaa markaa meesha ku jiraysa marka waa supply chain planning buu qaban doonaa procurement management buu qaban doonaa asset and inventory management hantida wad garanaysa alaabaha kale wixii hantiya nooca dad ama non expendable ama expendable kulbeedanto ka yaato waa uu ka shaqeyn doonaa qaybaha soo dhan waxa kaloo ka shaqeynaya compliance analytics reporting ka shaqeynta kamid ah waxyaabaha laga baahan waxa kamid ah qofkan inuu aqoon ahaan yeeshana degree xagga logistics-ka ama business administration-ka ama field kale oo hawsha la xiran 2 sano way arnima xagga logistics-ka ama administration-ka uu ka soo shaqeeyay hay'adaha yaqaan INGOs-ka ama international NGOs-ka computer skill word and excel kana waan yaqaana luqadda ingiriisiga af Soomaaliga waa inuu hada mid aad u wanaagsan oo markaa ku shaqeyn kara under pressure and something like that si ay shaqadan xareyso maxaa laga baahan yahay by online bal waxaan hadii la ka dhigo by online hab online aan lagu xareeyo insha Allah marka halka qorta click apply iyo link-kana xagga soo dhigi doona insha Allah link-ga video-gan xaqiisa hoose qaybta comments-ka waan soo dhigay insha Allah iyo kuwa kale inta sheegi doona dhamaantood waan soo dhigaya shaqada ka sii xigta waa isla bishii casayd uu garowe profession officer bay ugu baahan yihiin IRCD waa code mark ku xidhmi doontaa waxa kaloo technical program quality-ga staff supervision and development grants management and interagency coordination and representation waxyaabaha qofkan qaybo ka shaqeyn doona kamid ahaan doonta marka responsibilities-ku way farbadan yihiin qofkan looga baahan yahay laakiin hadda shaqo program scope qofkan ka shaqeyn doona waxa weeyaan waa the gender based violence GBV prevention officer will be responsible for implementing GBV projects and related activities within the Mudug region, both Puntland and Galmudug. labada uu ka shaqeynaya gobolba khaasatan qofkan uu ka shaqeynaya tacadiyada jinsiga ka dhanka ah xiriirada iyo mashaariicda iyo activity kala saxiida khaasatan gobolada Mudug iyo Mudug iyo Puntland ama Galmudugba marka kulli meelo badan baa uu ka shaqeyn doonaa Burtila kamid tahay tababarada la fulin doonaa capacity building program la fulin doonaa and so on waxa qofka uu report gareyn doonaa WPE-ga programkaas ayuu u report gareyn insha Allah si leed qof maxaa aqoon looga baahan yahay aqoonta looga baahan yahay waa arts xagga bachelor of arts socialist public health humanities and related field clear understanding of gender human rights surrounding violence against women and girls 3 to 5 years professional experience waxba sidoo kale looga baahan yahay code bishana waa xareynaya si leeg wax loo xareynayaa by online lagu xareyn doonaa isla saas leeg
meal officer bay u baahan tahay IRC oo monitoring evaluation and learning 3 March ku dhici doona booskana waa baydhaba ayaa looga baahan yahay scope-ka shaqada looga baahan yahay uu qabanaya haween under the direction supervision of implementation immunization project coordinator and meal manager. The meal officer will be responsible for the designing, monitoring and evaluation of research project. The meal officer will be responsible for supporting overall project progress, track gaps and improve quality assurance. qofkan waxa weeye wuxuu ka masuul noqon doonaa dabagalka iyo qiimeynta iyo report gareynta mashaariicda marka rich programka ama rich projectska waxa kaloo sidoo kale marka uu soo sheegi doonaa uu hab maxaa la yiraahdaa evaluation and learning uu ka sameyn doonaa track gaps waxyaabaha yimaada dib u dhac yimaada ama meelaha qaar soo gala iyo tayada habsamo socodka shaqada qiimeynteeda waxa soo dhammaan looga baahan yahay leadership quality baa looga baahan yahay technical officer baa looga baahan yahay waxa kaloo looga baahan yahay aqoon ahaan degree xagga statistics inta badan dad maqasho meelka maqasho statistics ayuu aad ugu shaqeeyaa M&E systemku aad ugu shaqeeyaa public health ayuu aad ugu shaqeeyaa sidoo kale marka iyadana hal xariir insha Allah 5 years experience related weeyaan booskana sidoo kale waa online bal waxreynaya shaqada si xigta tan waa interview hada loo yaqaan interview soo gaan kartaan waa hay'ad caalami ah waa joog caalami ah waxay u baahan yihiin program support officer garow ay u baahan yihiin position maxaa lagu baahan yahay waxa lagu baahan yahay position will support efficient and effective management and implementation of inter-biz programs in Somali program. The position will also enhance Somali program fundraising efforts in Somali regions. The position will collaborate directly with other members of inter-biz Somalia program. inta badan maadaama inter-biz tahay hay'ad ka shaqeysa arrimaha nabadgelyada doorashooyinka iyo habsamo socodka dimuqraadiyadda waxay kor u qaadaysaa barnaamijyada Soomaalida ee khaasatan lacag lagu raadinayo iyo goboladooda kala duwan soo qof marka la shaqeyn doona dhamaanba qaybaha shaqaalaha iyo xubnaha kala duwan ee Interbiz Somalia program specifically responsibilities waxa ka mid ah strategic and program development program implementation fundraising and management communication and advocacy afarta arrimood qofkaasi ku shaqeyn doona mabaadiidooda ay khuseeyaan sida qorshayaasha iyo mashaariicda horumarintooda jihaynta mashaariicda iyo fulintooda iyo sidoo kale maalgelinta iyo maamulka dhaqaalaha iyo wixii la xidhiidha advocacy-ga iyo communication-ka maxaa shaqadan looga baahan yahay aqoon ahaan hadda waxa sidee la February baa ugu dambeyn la soo xarin doonaa marka insha Allah hala daalo la soo xarin shaqadan la soo xariso Ambican Somaliland Community Gardening Coordinator Somaliland looga baahan yahay Ambican waa injo loo kala la aasasay 2008 Hargeysa lagu aasasay waa filayaa ama Soomaaliya ma ka shaqeynteeda badan waxa loo yaqaan waxa baahan yahay community garden coordinator bay baahan yihiin kaas oo ka masuul noqon doona target community-ga start maintaining community gardens community garden coordinator ku wuxuu furin doonaa nutrition program manager who will provide guidance and support. The schedule for this position will be Sunday to Thursday hadda iyo khamiisaha iyo qofkaasi ma la shaqeyn doonaa work hours waxa weeyaan 4 hours per sidana weekly 40 saacadood responsibilities in xagga soo galin insha Allah waxa aqoon wax lagu baahan yahay aqoon ahaan wax lagu baahan qualification skillka wax lagu baahan yahay horticulture or community gardening qualification a minimum of 3 years experience in interactive ya lagu baahan yahay marka insha Allah postkan waa iska fudud yahay oo farsamo yaqaan xagga caafimaadka ku fiican iyo beeraha iyo arrimahooda iyo ya lagu baahan yahay sidoo kale maxay Ambican u baahan tahay Ambican waxa baahan tahay communication and brand officer u baahan tahay baydhaba ay u baahan tahay iyadana linkiska waa soo gelin doonaa insha Allah
SOS Children Village waxay u baahan tahay nutrition program project of sabab u baahan tahay burxa kaba ee lagu baahan yahay oo burxa kaba qoliyaha caafimaadka nutrition waa hawsha xareeya dilaa ka dhigo by waxa lagu xareeyaa shaqadana by email ba lagu dirayaa saan filayo marka iyadana insha Allah hal xareeya linkiska xagga hoose soo geli doona dhamaantood shaqooyinka hala dadaalo keep in mind qofkii u baahan in CV-ga xabaan kala shaqeyno WhatsApp numberka 0634862926 anaga soo qabto waa 0634862926 baa rajinaya WhatsApp ahaan nooga soo qabato wixii tala. Assalaamu calaykum warahmatullaahi taala wabarakaatuh.